Bismillahirrahmanirrahim. Daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Man City oo doonaysa saxiixa Isco, Juventus oo tallaabo muhiim ah u qaaday dhamaystirka saxiixa Abdullahi, Man United oo si lama filaan ah isaga hartay tartanka Harry Maguire, Mohamed Salah oo noqday xiddiga saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda xulka qarankiisa, xulka Uganda iyo Zimbabwe oo barbaro ku heshiiyay kulankii labaad ee guruubyada, Real Madrid oo ugu dambeyn isaga quusatay saxiixa Paul Pogba, Lionel Messi oo rikoor cajiib ah ku hogaaminaya xiddigaha Koobka America, xulka qaranka Nigeria oo guushii labaad ka gaaray Koobka Afrika, Toni Kroos oo kashifay waqtiga uu ka fariisan doono ciyaaraha kubadda cagta, wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga, iyo weliba Liverpool oo iska diiday saxiixa xiddig u ciyaara Real Madrid. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ciyaaraha ee channelka Guulsida Media. Barcelona oo xaqiijisay inay dhamaystirtay saxiixeedii ugu horeeyay xagaagan. Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay dhamaystirtay saxiixa goolhayaha kooxda Valencia ee Neto, kaas oo noqday saxiixeedii ugu horeeyay ee kooxda Barcelona sameyso xagaagan. Goolhayaha Neto ayaa ugu soo biiray kooxda Barcelona heshiis isku bedelasho ah oo ay ku bedelatay goolhayaheedii hore ee Jesper, kaas oo ku biiray kooxda Valencia. kooxda Liverpool oo dhamaystirtay iyadana saxiixeedii ugu horeeyay suuqa kala iibsiga ee xagaagan. Kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixeedii ugu horeeyay ee xagaagan kadib markii ay dhamaystirtay saxiixa daafaca dhexe ee Saba, kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Beck Israel. Liverpool ayaa kooxdan kala heshiisay saxiixa daafaca dhexe ee Saba oo si rasmi ah u noqon doona xiddig Liverpool ah bisha July. 17 jirkan ayaa kooxda Liverpool qalinka ugu duugay heshiis waqti fog ah kadib markii ay Reds kooxda reer Holland kala heshiisay saxiixiisa. PSG iyo Barcelona oo wadahadalo rasmi ah ka bilaabay arrinka Neymar, xiddiga garabka weerarka uga ciyaara kooxda PSG ee Neymar ayaa si weyn loola xiriirinaya kooxda Barcelona xagaagan inuu ku biiro. kooxda PSG iyo Barcelona ayaa wada qaatay wadahadaladii ugu horeeyay ee Neymar loogu celinayo Barcelona inta lagu jiro xagaagan. laakiin sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya France, Barcelona ayaan la kulmin wixii ay ka filaysay wadahadalada. Neymar ayaa doonaya inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Barcelona oo uu ka soo tagay xagaagii 2017. Manchester United oo si lama filaan ah isaga hartay tartankii Harry Maguire. kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah isaga hartay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Leicester City iyo xulka qaranka ee England Harry Maguire, iyadoo albaabka u furtay kooxda Manchester City si ay u dhamaystirto saxiixiisa. Manchester United ayaa gabi ahaanba isaga hartay tartanka ay ugu jirtay saxiixa Harry Maguire kadib markii ay Leicester City dalbatay lacag dhan 100 milyan oo euro oo iyana ay awoodi weysay. Mohamed Salah oo noqday xiddiga saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda xulkiisa. xiddiga kooxda Liverpool iyo xulka Masar, Mohamed Salah ayaa dhaliyay gooshiisii ugu horeysay ee Koobka Qaaradda Afrika kulankii uu xulkiisa wajahayay xulka DR Congo. xiddiga garabka ka ciyaara Mohamed Salah ayaa daqiiqadii 43aad xulkiisa u dhaliyay gool qurux badan, kaas oo ka saaciday wadankiisa inuu guul muhiim ah ka gaaro kulankii xalay. kadib goolkaas Mohamed Salah uu dhaliyay waxa uu noqday goolkiisii 40aad ee uu xulkiisa u dhaliyo, waxa uu noqday xiddiga saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka wadanka Masar. weli waxaa si xiiso leh wadanka Masar ugu socda Koobka Qaramada Qaaradda Afrika, iyadana xalay wadamada Uganda iyo Zimbabwe ay barbaro 1-1 isla dhaafi waayeen. ugu dambeyntiina Real Madrid ayaa isaga hartay saxiixa Paul Pogba. kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay gabi ahaanba isaga hartay saxiixa xiddiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United iyo weliba xulka qaranka ee France Paul Pogba, kaas oo si weyn ay u doonaysay Los Blancos. Real Madrid ayaa la sheegay inay isaga hartay baacsiga xiddiga qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba, iyaga oo dhanka kale u jihaystay xiddiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Napoli ee Fabian Ruiz. shabakada caalamiga ah ee Goal.com ayaa warkan laga soo xigtay. daawade si aad u hesho warbixino kale oo ku saabsan ciyaaraha, subscribe dheh channelkan Guulsida Media.